madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii shalay toole ahayd soo saaray digreeto uu ku magacaabayo gudoomiyaasha dalka waxaanu madaxweynuhu si mug iyo miisaan leh uu kaalintooda u siiyay dhalinyarada dalka anta warbaahinta dareenkiisa farxadeed uga waramay gudoomiyaha gobolka Salal waa Mawlid Maxamed Nuur Warsame waxaana uu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magacaabay halka barasaabka gobolka Salal madaxweynaha waxa leeyahay madaxweynaha wad ku mahadsantahay shaqada aad magacaawday insha Allah bismillah kariim waxaan ku shaqeyn doonaa sinaan iyo cadaalad dhamaantay aniga tiimka kale insha Allah ila midka dadka inta soo xambaliyay ee noo soo ducaysana waxaan leenahay wad mahadsantihiin insha Allah waxaan ku shaqeyn doonaa siyaasadda iyo boolisiga madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dalka uu dejiyay إنه شرع بسحيو يكوكاي وعبد الرحمن عبد الله عيسى عبد الرحمن شومبو تلفزيون عالمي GTN TV مقالة هرقيسة.